waxaad ku soo dhawaataan halkan inaan ku duubi doono mowduuc aad qaali u ah. mowduucaas wuxuu ka hadli doonaa jibinta ama waxa loo yaqaano hackerska, siday u isticmaalaan inay wax u jibiyaan. hackerska sida caanka ah ama commonka ah waxay u qaybsamaan 3 qaybood. saddexdoodana calaamado ay kala leeyihiin. calaamada koowaad waa waxa loo yaqaano black hat hackers. hackerska noocyadooda koosha guduuda ah. kuwan waa kuwa ugu daran, waa kuwa dambiilayaasha ah, waa kuwa blacklistiga wadamada ku jira. waxay jabsadaan website-da, waxay dhacaan hanti, waxay xadaan waxyaabaha privacy-ga ah ee qofka shakhsiga uu leeyahay. waxaa ku xiga niman loo yaqaano grey hat hackers, kuwa koofidooda ay cawlan tahay. marka hore intaanan soo dhaafin, waa maxay sababta ay u baxday magaca black hat hackers? asal ahaan magacaas wuxuu ka yimid wadanka Mareykanka, halka dadka xunxun ee dambiilayaasha ay xiran jireen koofiyaha madow. waxaa xigo grey hat hackers, kuwa koofiyadooda aysan cadayn haddana aysan madoobayn. kuwani waa kuwa yaqaano cilmiga hackinka ama jibinta. iyaga waa niman dhici karo haddana aanan falalkooda ama aqoontooda hackinka aan u adeegsan wax ku dhacaan. waa niman tijaabiya website-yada, tijaabiya aaladaha, tijaabiya networkyada la dhiso, tijaabiya wax walba oo internetka la xiriiro. haddii ay helaan wax cilad ah, waxay si automatically ah ama si dhaqsi leh ugu gudbiyaan nimanka iska lahaa website-ka ama aaladda iska lahaa, sida shirkadaha Facebook, Google, Microsoft iyo wax lamid ah. waxaa jira niman la yaqaano white hat hackers, kuwa koofi cad ah. kuwani waa professionals, waa nimanka loo yaqaano cyber security expert. waa hacker weyn oo caan ah, haddana aanan ku shaqaysanin wuxuu yaqaanay, wuxuuna ugu shaqeeyaa shirkado kale. sababtoo ah hackerka qofku markuu yahay cilmigaasi qaabku u adeegsada ayuu wuxuu galaya listiga 3 mid kamid ayuu galaya. marka midka loo yaqaano white hat hackerska ama kuwa koofi cadda ah waa kuwa ilaaliya amniga shirkadaha, waana kuwa la shaqaaleysiiya inta badan. waxaan rajaynayaa inaad intaas ku fahanteen 3 nooc ee loo yaqaano hackerska.